السلام عليكم daawade 2026 uu bilowday haddaba daawade ma ku qorsheysantahay inaad sanadkan si fiican uga faa'iideysato haddii ay jawaabtaadu haa tahay waxaan ku soo gudbinayaa 7 waxyaabood oo ka saacidi kara in sanadkan uu ku noqdo mid ku miro dhala qodobka koowaad wanaaji xiriirka aad la leedahay Allah qof walba oo wanaaji xiriirka uu la leeyahay Allah isaga abuurtay isla markaana ka soo baxa waajibaadkii la saaray waxa hubaal inuu guuleysan doono isla markaana adduunkiisa iyo aakhiradiisa ay labadaba hagaagayaan qodobka labaad yeelo qorshe iyo hadaf cad oo qoran qofka aan hadaf uu higsanayo wuxuu la mid yahay qof aan aqoonin meesha uu ka yimid email uu socdo in qofku uu leeyahay qorshe cad iyo hadaf uu higsanayo waxay u suuragelisaa inuu si sahlan ku gaaro halkii uu higsanayay ama yoolkiisa ahayd qodobka saddexaad si fiican u maareeyo waqtiga oo loo maareeyo si wanaagsan waxay ka dhigan tahay in si fiican looga faa'iideysto waqtiga isla markaana aan la dayacin fursadaha nolosha axmaqnimo waqti kaaga tagay oo hinkuugu reebi ayaantii ku dhaaftan waato aan la eegayne axadkii kaslaan ahi sabool abidku weeyaane qodobka afaraad yeelo kaydka dhaqaale aad maanta samaysato waa mid aad biri ku fakan doonto markay ku soo wajahaan duruufaha nolosha qof walba oo dhalinyaro ah isla markaana laga yaabo inay wax u soo galaan bishii waxaa qasaba inuu yeesho kayd dhaqaale intay doontaba hala ekaatee qodobka shanaad yeelo xirfado cusub adduunka casriga maanta uu ka guuray in qofka la fiiriyo inta shahaado uu haysto waxaana loo guuray in qofka la fiiriyo inta xirfad uu yaqaano qof walba inta uu ka xirfado badan yahay qofka kale ayuu ka fursado badan yahay marka ay timaado suuqa shaqada iyo guud ahaan fursadaha kaleeto qodobka lixaad ku dadaal caafimaadku waa hantida ugu weyn ee uu qofka haysto haddii aadan ku dadaalin caafimaadkaada isla markaana ay waxyeelo gaarto naftaada waxaa sidoo kale dhaawac weyn uu soo gaaray hadafkii aad ka lahayd nolosha maxaa yeelay haddii aad nafta weyso maba jiro hadaf kale oo aad gaari karto qodobka toddobaad dib u hubi waxqabadkaaga inaad mar walba dib u fiiriso waxqabadkaada waxay kaa saacidaysaa inaad ogaato inaad u socoto jihadii aad u baahnayd iyo in kale